أولاً مقعيق هو علي إبراهيم محمد وحان حفيز كانوا قابلة برنامج لو يقانو أما مشروع قرض حسنك أرديد السيمد gaar ahaan horumarinta iyo ka warqabka xagga waxbarashada ee jaamacadda sanooyinkan dambe waxaa ku soo biiray mashruuc loo yaqaan Qardo Xasan mashruucaas oo loogu talagalay ardayda danyarta inay ka faa'iideystaan ardaydaas oo ah deyn aan lahayn wax dulsaar ah in la siiyo ardayga loogu talagalay mashruucani waa ardayga semester 1-da ilaa semester 2-yada ilaa semester 3-yada ardayga haddii uu gaaro semester 7 iyo semester 8 waxaa jiro oo ay soo wajahdo dhaqaale xumo jaamacadda ayaa siiso Qardo Xasan wuxuu haystaa 3 sano 36 bilood inuu isaga bixiyo lacagtii uu jaamacadda ku bartay waana laga sugaa ilaa uu marka uu shaqaysto magacaygu waa Ruwayda Cabdiraxmaan Cabdulaahi waxaa ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda Simad Faculty of Social Science Department Public Administration aniga waxaa nasiib u yeeshay in jaamacaddeeda ardayda ay u sameysay deyn xilli waxaa ku soo aaday cadad tiro badan oo 9 gaarayo oo hal family ah wadanahay inay hal mar one time ay jaamacaddooda aadayeen family ahaanna hal aab way ku adkaan kartaa waan la dareemi karaa 9 arday oo jaamacadaha Muqdisho inay wada aadaan oo inkamkiisa uu ku wada bixiyo macnaha inay suurtagal ahayn qof kastuu dareemi karaa ani ahaan waxaa nasiib u yeeshay jaamacaddeeda oo lahayd Qardo Xasanka ama deynta in wax lagu barto nasiibkaas anigoo ka faa'iideysanayo bilaabay sanadkii la soo dhaafay Qardo Xasanka inaan wax ku barto sanadkan oo sanadkii jaamacaddii ugu dambeeyay inaan ku dhameysan doono rajeynaa insha Allah magacayga waan Istaaca Kaafi Aadan waxaa ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda Simad waxaan dhigtaa kulliyadda maamulka maareynta gaar ahaan bangiga maaliyadda ama banking and finance jaamacadda markii hore aniga 2016 ka soo galay labada sano ugu horeysay 2016 ilaa 2018 waxa ku dhiganay fiigayga oo fuulaha iska bixinay marka yani fiiga xoogaa uu iska badnaay anina waxa familka xoogaa yani awoodda u leeyahay waalidka in jaamacadda uu iga bixiyo xoogaa way yareed alxamdulillah intii hore iga bixinaan ma sha Allah way fiicnaayeen laakiin xoogaa culays saa'id ku haysa waalidka jaamacadda hadda yani Qardo Xasan ku dhigtaa boqolkiiba 30 iska bixiya 70 kalatana waa loan payment oo jaamacadda marka dhamay kadib 3 sano inaan bixiyo liga rabo hadda boqolkiiba 30 aabaa iga bixiyo jaamacadda marka soo laabtay waalidka la kaashtay waxaan dhahay jaamacadda barnaamijka soo kordhisay aabaa jaamacadda iga bixinaa aabe barnaamijkan jaamacadda ma ka dhigtaa mise waxa waaye waxay nagu qaadataa waa iska bixi karnaa jaamacadda aabbo wuxuu dhahay culays badan u yeesay alxamdulillah jaamacadda deesaan noo soo kordhisay waa ka faa'iideysanayna aniga sanadka saddexaad marka bilaabayay barnaamijka Qardo Xasan bedelkeeda hadduu soo jiri lahayn oo culays badan uu soo wajahay waxa laga yaabaa in jaamacadda ismooraal ama niyad jabsanaa ka tagi lahay ama haddii aan joogan maaragtaa farxad aanu haysanaa si dhiga lahaa magacaygu waxaa leedahay Faadimo Maxamed Cabdirabbi waxaa ii dhigto arday ayaa waxaa ii dhigata 3 arday ayaa waxay ii dhigataa jaamacadda Siima jaamacaddana hal gabar anaa iska bixiya 2 gabdhoodna waxay iigu dhigtaan Qardo Xasana bangiga Prime Bank ayaa wuxuu iga bixiyaa 70% anigana waxaan bixiyaa semesterkii 30% anigu horta qof wax bartaan ahay waxaana jeclahay ilmahayga inay wax bartaan taas ayaan igu kaliftay dariiq kasto oo ay wax igu bar karaan inaan raadiyo nasiib wanaag barnaamijkan aan la kulmay haddii aanan la kulmi lahayn runtii anigu waa u adkaa lahayd 3 arday inaan fee ka bixiyo buu ka bixiyo transportation ka bixiyo way ugu adkaa lahayd anigoo magacayga Ismaaciil Abubakar Cumar kana tirsan howlwadeennada Premier Bank qaasatan qaybta maalgelinta haddana title-keedu uu yahay Investment and Finance Officer mashruuc ayaa jiro oo ardayda annaga sidoo kale aan ku caawino kuna garab istaagno kana bixino fiiga ay jaamacadda ay ku dhigtaan intay doonto ha noqoto intuu ardaygu u dhiganayo jaamacadda 2 sano 3 sano 4 sano ilaa 6 sano 7 sano kadibna ardayga lacagaha annaga aan ku maalgelino oo dib isaga bixin doono mar alla markuu jaamacadda uu dhameeyo 7 sano ha noqoto ama waqtiga doonto ha noqoto kadibna uu shaqo helo mashruucan waxaan siinaa maalgelin oo deyn ah oo waxba laga faa'iideynin hadhowna ay dib isaga bixin doonaan mar alla markii ay dhameeyaan jaamacadda sidoo kale annaga ardayda markaan muhiimadda ma ahan inaan waxaan siinay aan ka soo ceshino marka dambe ama waxa laga bixiyay in laga soo xiliyay muhiimadda ma ahan
waxaan continuity consistency u yeeshaan ay u sii jiraan in muddo ah micnaheeda lacagta asaga hadhow bixin doono waxaa loo isticmaali doonaa arday badan oo Soomaaliyeed oo maanta markaas la jooga aanan awoodin ayagana in ay bixiyaan in lagu kabo marka tan asaga laga qaadayo ma aan in anaga qaadanayna waxaan ku kabaynaa ardayda mustaqbalka imaan doonta si ay mashruucan oo u noqdo mashruuc si jira arday walban uga faa'iideysto